warahmatullahi wabarakatuh. waa shawarka maxamed cali madaxa barnaamijka on capital network. allahumma salli ala sayyidina maxamed. asxaabta waxaanu dib u eegis ku samayn doonaa pairskii aynu muuqaaladii hore kulamadii hore aynu iskula socodsiinay iyo wixii ka qabsoomay. sidoo kalena waxaanu eegi doonaa haddii aynu positionno hor la geli karo eegi karo. Boni US oo kale allahumma salli ala maxamed YouTube channelka aynu soo dhigay iyo Telegram kaba allahumma salli ala maxamed. waxaan price ku sorry aan ka dhigay ikadi price ku waxa weeyaan zoonaha markuu ka soo noqday oo soo hoobtay boonkii waxa weeye pullback baynu sugaynay. pullbackgaasi inuu qabsoomo. pullbackii ba xoogaa iminka aad moodaa inuu yaro qabsoomay. ikadi haddaan 4 hour ka kala eego waxa weeyaan price-ku aan calaamadiyeyso pullbackii aynu sugaynay ee qorsheena wuxuu ahaa inaynu pullbackgaas sugno inta uu ka qabsoomayo. markaa waxaad moodaa pullbackii inuu qabsoomay. zoonahaasina waa resistance xoog leh, waa zone resistance ah. zoonahaas oo dhan price-ka waa zone xoogan oo resistance ah. markaa levelkani waa levelkani doonayna price-ka inuu markuu gaadho inaynu hoos uga soo gallo. markaa waxaan yeeli karaa allahumma salli ala maxamed halka imika candle xoogan oo hagaagsan oo bearish buu siiyey. kadib markii uu candlekii hore uu ku dhamaaday inkastaanu candleku weli xidhmin. candlekii hore markuu ku dhamaaday kalama adkaan viruska iyo sellerska. markaa candleka kasii horeeya waa bullish. waxa weeye price-ka oo pullback sameynaya oo si fiican xawaaro kor ugu socda. markuu levelkii resistance-ka gaadhay ayuu maagtay oo halkaa ka maagtay. deedna waad aragtaa candleka dhexe inuu yahay candle tilmaamaya kalama adkaan tilmaamaya. candleka xiga ee samaysmay markaa waa bearish. adigu markaa waxay doontaba ha noqotee ama candle patterns isticmaal ama tricks ama technique kastaba isticmaal. oo muhiimadeena waxa weeyaan waxay ahayd price-kani markuu level gaadho levelka pullback uu dhamaystirmo inaynu short soo galno. markaa leveladaynu sugayna waxay ahayd hadduu meelahan ka noqdo haddii pullback u dheeraadana waxay ahayd levelkan ay ahayd. markaa farsamooyinka isticmaalaysa ama candle patterns isticmaal. marka waxaad moodaa buyerska in gobolkoodu dhacayo. candlekan hadduu sii dheeraado waa candle pattern jira. allahumma salli ala maxamed. haddaad doontana waxaad isticmaashaa trendline-ka kale trendline oo kale isticmaal. trendline-kaas oo kale isticmaal. markaa markasta oo price-ku uu ka hoos maro deedna short u gal. waayo waxay ahayd inagu inaynu sugno boonka. waxay ahayd inaynu sugno pullbackgaas inuu qabsoomo. anigu waxa weeyaan ikadi riskiga imika masalan bond US oo kale levelkaasaan ku gelayaa. laakiin waa idin riskiga idin xadidaa. qof walba qof ha ku dayanin. laakiin qof walba jeebkiisu waa gooni. laakiin waxa weeyaan muhiimadu waxa weeyaan markaa inaad adoo riskiga xadidaya waa inaad imika target ka horeeya meelahan haddaa ka dhigo is okay. waxaan aaminsanaya inuu dhaafayo laakiin good. marka pipska ilaa intaas waxay noqonaysaa pipska ilaa 170 pip. waxa mar walba waa inay pipska targetka ka bataan ka aad risk garanayso. marka waxaan filayaa price-ku meelahan inuu ka soo noqdo. hadduu ka soo noqon waayena oo xoogaa spike ka sameeyo. waayo qolyahan jeebka roon waxay ogsoon yihiin meelahan in stop loss kala dhigayo way ogsoon yihiin. marka marar baa jirta ay dadka jeebkooda
ayara si waxaan ku iri ogaana ah spike yar baa samaysmaa candle spike ah deedna kabacdi meelahaas laga soo noqonaya si wixii alaale wixii meelaha stop loss ka dhigtay oo dhan lacagtooda loo qaato anyway laakiin waa inaad markaa risk haddaad dhigayso riskigaaga aad xadidaa oo aanad trade-ka qura waxba u noqon sidoo kalena qorshahaaga aanu dee waxba iska bedelin waayo qorshaheen waxa weeyaan waxay ahayd levelkan marka la gaadho inaynu short soo galno waaya bond US weeye taasi haddaan ka gudbo allahuma salli calaa maxamed US card baynu joognay oo ah zone support ah joogay zoonaha supportka ah inuu kasoo falceliyay ahayd allahuma salli calaa maxamed mesela haddaan forwarka kala eego waayahay forwarka kale haddaan eego halkan waxay ahayd qorshaheenu trendline-ka ayuu price ku jabiyay baynu marka zoonahani waa support yar baynu lahayn aynu isu sheegnay muuqaaladii inoogu horreeyey price-ku si fiican buu trend koraa buu sameeyey marka pullback buu sameeyey ku xejiyey zoonahani zoono waxay noqdeen candleska spike ayna wuxuu tilmaamayaa zoonahan in uu noqday soone markaa xoogan marka waxa weeyaan price-ku trendline-kaasuu kor u jebiyey allahuma salli calaa maxamed haddaan eego masalan hourka kale waxa weeyaan halkaasaan ka galay marka intan oo dhan minus baan ahaa candleku trendline-kii price-ku ay ahayd qorsheen wuxuu ahaa inuu trendline-ka kor u jabiyo oo uu xejisto candle-kaasaa kasoo hoos maray laakiin markaasoo keliya markiiba candle ku xiga uu diiday ayuu hoos ku xidhan laakiin candle-kan imika candle-kan fiiqan awoodda badan ee hoos ilaa halkaas soo gaadhay waxa weeyaan haddii uu hoos ku xidhmi lahaa trendline-kan hoosteeda uu ku xidhmi lahaa macnaheedu waxa weeye markaa qorsheena waxbaa iska bedeli lahaa oo trendline-kan waxay noqon lahayd mid aan xooganayn oo price-ku diiday inuu dusha ku xidhmo taasoo macnaheedu ay tahay markaa correction kasii ballaaran inuu price-ku doonayo inuu sameeyo allahuma salli calaa maxamed yeelku timay dhicin waxaa inoo muuqata iminka candle-kan oo tilmaamaya dagaal weyn oo ah lala galay qoladii sellerska ahayd ilaa intaasoo dhan ba la iska caabiyey awood baa dib loogu celiyey buyerska dib ugu celiyey awood bay deedna u heleen buyersku inay price-kii ku xidhaan xagga sare ku xidhaan allahuma salli calaa maxamed marka qorshaheenii waxba iskama bedeleen qorshaheenii weli waa long targetku waa halkaa weli US card muuqaaladii hore haddaad daawato waxa weeyaan shalay sidan isugu sheegnay weli qorshaheenii long ahaa waxba iskama bedelin taasi wataa allahuma salli calaa maxamed haddaan eego Aussie Swiss franc dollarka Australia iyo faranka Switzerland masalan price-ku trendline-kaasuu jabiyey baynu niri dushiisa iyana waa inuu xejistaa allahuma salli calaa maxamed price-ku markuu xawli ku socday xoogaa buu galay aad moodo range ah uu galay deedna ama saddex xagalkaas oo aad moodid inuu price-ku range yaro galay laakiin akhiiran trendline-kaasuu kor u jabiyey deedna dushiisa ayaan doonayna inuu xejisto allahuma salli calaa maxamed docdo kale haddaan eego forwarka kale haddaan eego waxa weeyaan forwarka kale haddaan eegno price-ku si fiican buu xawaaraha buu kor ugu socday deedna pullback buu sameeyey zoonahaasoo dhan wuxuu tilmaamayaa zone resistance xoogan support xoogan ah aagaas wuxuu tilmaamayaa support xoogan price-ku deedna waxay ahayd qorsheenu inuu maxay uu kor price-ku soconaya leveladana uu dhaafay marka price-ku inuu kor u soconaya
اللهم صل على محمد. anyway qorshaheeni markaa Aussie Swiss franc iyana waxba iskama bedelin, weli long baynu haynaa. eeg meelahan oo aan shalay buy ku galay price-ku intuu kor u dhaafay inta pullback soo sameeyay, haddana maadaama protectionka meelahan aan dhignay waxa weeyaan haw baqan weeye arrinku. markaa yeelka qorshaheeni waxa weeyaan waxba iskama bedelin ilaa iminka. weli waxaan aragnaa waxaan samayn karaa trend line-ka 1 hour ka kala xaragta trend line-ka price-ku inuu ixtiraamayo. weli imse dhowr jeer oo price-ku ixtiraamayo trend line-ka, ka waxaad moodaa weli direction-keeni xagga sare inuu price-ku kor u soconayo, weli wax iskama bedelin, long baynu haysanaynaa. waayahay allahumma salli ala maxamed. euro pound iyadoo signal ah ayaan idinla soo wadaagay muuqaalkeeda YouTube channelka on capital network buu yaalaa, telegramka isna waa soo dhigay. allahumma salli ala maxamed. qorshaheenu wuxuu ahaa waynu isu sheegnay kulankeenii hore. price-ku kadib markuu jebiyey trend line-ka uu jebiyey, price-ku trend line-ka jebiyey inuu pullback samayn doono. waxaan isu sheegnay price-ku meelaha jooga, pullback-gaasi pullback xoogan yahay oo aynu u baahnay markaa inaynu ka faa'iidaysano trend line-ka price-ku markuu jebiyey. marka waxa weeyaan euro pound sidii aynu u lafamaguray u garfaynay ayay u qabsantay. meelahaasaynu signalkan isku siinay, dabeedna waxa weeyaan price-ku sidaynu ugu talagalay buu qabsoomay, si xawliya buu retest ugu sameeyey trend line-kii jebiyey. marka oo suurtagal inuu pullback yar sameeyo, laakiin mar labaad dib uu hoos socdo. kabacdi markaa aynu aragno istaan muujinaysa, kastoo meelahan aynu ku aragno zoonayaal xoogan, zoonahaas uu support noqon karo. kabacdi markaa aynu halkaa ku aragno zoonaha wax isbedela oo tilmaamaya mar labaad dib u noqosho. laakiin ilaa iminka price-ku waxaan aragnay hoobadka already targetkii aniga wuu hitgareeyey. marka euro pound iyadu qorshaheena sidaynu u qorsheynay bay u qabsoontay, ciddii la socotay markaa on profit buu ugu xidhmay. waayahay haddaan halkaa ina euro pound halkaa ku dhaafo, euro Aussie aan ku xejiyo waxa weeyaan waxa weeyaan euro Aussie waa signal cusub. waxa weeyaan waxaad moodaa price-ku inuu weli wax yar baa laga yaabaa inuu hoos sii socon karo. zona jooga support ah, marka waxba laakiin axmed xoogaa inuu weli laakiin aan weli dhamaystirmin, aanay jirin astaan ah in price-ka hoosta u socdaa ay soo afbeeshay. dhinaca kale haddii laga eego, dhinaca kale haddaynu ka eegno price-ku si xawliya buu hoos ugu socday, pullback buu sameeyey, laakiin wuu diiday inuu kor u socdo. waxa weeyaan zoonahaas oo dhan markaad eegto waxa weeyaan zone waxay noo tilmaamaysaa zoonahan inuu yahay zone resistant noqday, xoogan inuu noqday. marka waxaa intaa markaynu raacino, haddaynu raacino intaa haddaynu raacino trend line-ka uu price ku jebiyeyna waxa weeyaan waa direction-keenu markaa wuxuu noqonayaa bearish, inaynu hoos soconno. marka mar walba uu price-ku pullback yara sameeyaba
inta uu price ku dhowrayo trendline-ka hoos baynu soo gelinaa qorsheena waa sidaa dib baynu iskula soo socodsiin ilaa berito allahumma salli ala maxamed haddii alla idmo waynu isla socon doonaa Euro-Aussie ha laga war dhowro inuu price-ku pullback kor u yara sameeyo dabeedna ku siiyo xaqaa'iq tilmaamaya in short mar labaad hoos loo soo geli karo markaasun baynu aan hoos soo geli laakiin iyana heegan ha lahaado qorshaheena ku aadan Euro-Aussie wacanka allahumma salli ala maxamed Aussie Young oo kale magadan eego iyana waa position iyana la raaci kartaan ikaadi haddaan eego allahumma salli ala maxamed haddaan eego iminka oo kale price-ku zoonaha uu soo noqday marka waxay price-ku meelahaas ka soo noqday mar walba waxay noo muuqatay in price-ku hoos socdo mar walba inuu hoos socdo ayaa noo muuqata ikaagona warka haddaan imaado docda kale haddaan price-ku waxa weeyaan trendline-kana uu jebiyey trendline-kana hoos buu jebiyey isla markaana allahumma salli ala maxamed waxay noo muuqataa mar walba inuu hoos socday price-ku trendline-kaas uu jebiyey markasta uu pullback sameeyo inuu siiyo xaqaa'iq tilmaamaya in hoos loo geli karo hoos baynu gelaynaa iyana Aussie Young waxaan dhowraynaa price-ku waxaan sugaynaa in uu pullback kor sameeyo oo inuu dabeedna aynu hoos soo galo intaas waa wax fudud oo waxa weeyaan waa inaad samirtaa oo sugtaa waxaad ka doonaysaa suuqu markaad suuqa sawiro oo ay condition criteria-daadii oo dhan ay okay noqoto markaasun baa suuqa la galaa haddaad tidhaahdo waxa weeyaan galgal mar walba waxa weeyaan ma wanaagsana haddii iminka waxa weeyaan riskigaaga haddaad controli kartid iminka market price ku geli kartaa laakiin waxa sida qurux badan ee wanaagsan waxa weeyaan pullback adigoo suga hadii doontana iminka market price-deeda ku geli kartaa laakiin waan riskigaaga aad xadidaa waayo riskiga haddaad xadido uma baahnid ma baqaysid stop loss-kaaga xitaa haddii la taabto wax weyn kulama noqonayso marka targetka zoonahana laga yaabo in support noqdo hadhowto ayaynu dhignay protection-keena u dambeeyo markasta uu price-ku pullback sameeyaba waxaan filaynaa inuu hoos soo socdo waaya allahumma salli ala maxamed iyadoo aynu levelkana ka war dhowri doono hadhowto hadduu levelkaasi level xoogan noqdo oo price-ku yiri meelaha istaagana profit-keena waan iska qaadan doonaa waaya allahumma salli ala maxamed marka Aussie Young pullback kasta uu price-ku kor u yara sameeyaba short hoos ha loo soo galo qorsheena waa taa allahumma salli ala maxamed haddii masalan Euro Young meelahaasaan ka galay meelahaasaan short ka soo galay protection-kana halkaasaan dhigay targetkana meelaha waan dhigay marka weli signalkan uu furan yahay position-kan la wadaagaya un markasta oo price-ku hadduu pullback yar sameeyo meelahaasaan ka galay hadduu pullback yar sameeyo short baynu raacaynaa iyana qorsheeda waa intaa aan yaro dul marayaa un allahumma salli ala maxamed waaya Aussie US waxa weeyaan price-ku
waxa weeyaan xaggaa horta waxaad moodaa double top inuu sameeyey, laakiin waxaanu ka war dhowraynaa uun isaga haddii maxay uu price ku sameeyo trendlineka hadduu jabiyo oo uu ku xidhmo retest ku sameeyo, dabeedna intuu retest ku sameeyo uu dabeedna xajisto, markaas mayna hoos u gelayna ka standby ha lahaado. targetka u horeeyana meelahaasaynu ka dhigana, inagoo protectionka meelaha dhigana, waayo waxa weeyaan waa inaan markaa taata ka taxadiraa. candlekan weli ma xidhmin, wuu furan yahay. qorsheyn waxa weeyaan priceku zoonahan oo double top ka sameeyey trendlinekaas hadduu priceku jabiyo oo xajisto inaan short u galno inagoo targetka meelaha dhigayna. marka weli candlekan wuu furan yahay, markaa imika geli mayno, laakiin waxa weeyaan waad ka war dhowraysaan. Aussie US inaynu perish inay noqoto baynu ka war dhowraynaa, dib baynu iskala soo socodsiin doonaa insha allahu tacaala. inoo sidaa allahuma salli calaa maxamed. bound baa yimi, bound young meelahaasaa kasoo galay intrigii staloska meelahaasaan dhigay. priceku si fiican ayuu hoos ugu soo socday, marka waxay ahayd ikaadi wuxuu sameeyey priceku waxay ahayd correction inuu sameeyo, waxay ahayd inuu correctionkii sameeyo dabeedna aynu hoos usii raacno. allahuma salli calaa maxamed. waxaad moodaa range inuu galay, rangekaa yar inuu galay, marka laga yaabay hadduu rangekaa kusii joogo inuu hoos usii jabsan karo. targetka meelahaasaan dhigay, protectionkana meelahan oo kasoo galay. marka waxaa laga yaabaa inuu rangeka correctionka nooc inuu range ahaan u sameeyo, dabeedna laga yaabo inuu hoos u jabsado. anyway waxa weeyaan bound young waa perish. astaan kasta oo aad aragto oo perish taageeraysa short waa loo sii raaci karaa. iminka rangekaasaynu aragnaa inuu ku jiro, waxba waxa ma qurux badna sawirkaasi. yeelkee waxaa laga yaabaa markuu hoos uga jabsado levelka uu hoos uga baxo ayuunba inoo xaqiiqoobaysaa inuu priceku sii socon karo. hadduu kor uga baxo iyadoo waa inaynu qaadanaa. waayahay allahuma salli calaa maxamed. marka pound young waa perish waxa weeyaan zoonahan waxa weeyaan zoonada support ah, zoonahan waa zoonada support ah, waa zoonayoga waa zoona support ah. marka price waxaan filaynaa in zoonayoga uu kulliba ka noqon doono oo bullback ka samayn doono. allahuma salli calaa maxamed. asxaabta intaasaan kusoo koobayaa. waxaanu isla socodsiinaynaa waxaa noo socota diiwaangelin xubnaha markaa asxaabta danaynaysa inay isu diiwaangeliyaan VIP membership ahaan si ay u helaan analysis iyo signals maalinla ah oo live ah oo zoomta ku kulano maalin walba, isla markaana iyo toddobaad walba oo ah duruus si ay u helaan. allahuma salli calaa maxamed. qofku wuxuu iska diiwaangelin karaa, si isu diiwaangeliyo wuxuu email buu soo diri karaa. macluumaadka waxay yaalaan sharmarka la shaqeyso telegram groupka aan ugu magac daray sharmarka la shaqeyso ayay macluumaadku yaalaan, halkaasuu ka tixraaci doonaa. intaasna isu socodsiinayna. ugu dambeyntii waa sharmarkoodin leh shaqo wacan asxaabta. waxa weeyaan maalinta iyo habeenka iyo xilliga ku jirtaan baa idin wacnaado. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.